بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن صاحبة قيمها قدرلتا إيقايها لقمدلو من البعد جوكتال مرحلة البعد لو داو ليسال وعال هود دكاليلا هاي رمضان مبارك. محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري. maanta waa maalintii 29aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaa la dabcan hadduu Allah uu dile raali ka noqdo muuqaalkeena ku eegi doonaa Ramadaan muxuu iga reebay isxisaabil ayuu muuqaalkeena markaa ka dhigan tahay maanta. حديثكي يا حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يسونكو حناني يدين توحوقو يسونكو. waxaan muuqaalkeena dabcan aan dul istaagi doonaa isxisaabilta carabka iyo sidoo kale qalbiga ama taqwada, isxisaabilta waqtiga iyo sidoo kale cibaadada, xisaabilta dadlimada iyo sidoo kale gargaarka ayaan muuqaalkeena ku eegi doonaa. aqwaasha markaa ku saabsan calaamada guusha kama marla daawadayaal. waxaa kaloo muuqaalkan ka marleel oo aan ku dul istaagi doonaa maxay tahay ama ka dhigan tahay qofku inuu yahay qof rabaali ah iyo sidoo kale inuu yahay qof ramadaali ah. maxay markaa la macno tahay, maxayse labadan sifo qofkii ku sifooba ay ka dhigan tahay ama uu yahay. qodobadaas ayaan daawadayaal muuqaalkeena ku dul istaagi doonaa daqiiqadaha soo socda ee soo dhawaada saaxiibayaal. mar kale kula wacan saaxiibayaal, maanta waa 29ka bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaana miiska iloo saaran oo muuqaalkeena aan ku gurfan doonaa Ramadaan muxuu iga reebay. muuqaal dabcan xamaasadiisa wata. bisha barakeysan ee Ramadaan waa dugsi markaa sanadla ah oo soo mara nolosha muslimka, maadaama ay bishu dhammaanayso. su-aasha markaa ugu muhiimsan ay tahay inuu qofku isweydiiya ma ahan ma soontay, balse waa muxuu ramadaanku markaa iga reebay. quraanki xadiiski xuduudki ilaahay حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يسونكو حناني يدين توحوقو يسونكو. maraayada koowaad ee isxisaabiltu waa carabkaaga. ramadaanku wuxuu ahaa bil markaa lagu tababaranayay aamuslaalta khayrka leh iyo sidoo kale akhriska qur-aanka kariimka qolkii eebbe. isweydii miyuu carabkaygu bartay in markaa uu iska dhowro xanta, baynta iyo sidoo kale hadalka macnodarada ah, mise sidii aan ahaa bil ka hor ayaan weli markaa ahay. qofka soonkiisu uusan isbeddel markaa ku samayn hadalkiisa wuxuu u baahan yahay in markaa dib u eego nuxurka soonkiisa. isxisaabilta qalbiga ujeedada ugu weyn ee soonku waa taqwada, ka cabsashada alle subxaanahu wa tacaala. isweydii miyuu qalbigeygii jilcay, ma dareemay cabsida alle marka aan dembiga qaban rabay aniga oo codla jooga. calaamadda haddii marka aad dareento xasilooni iyo sidoo kale in dembigu uu kugu cusub yahay, ogow ramadaanku waxa uu kugu reebay nuurka iimaanka. isxisaabinta waqtiga iyo cibaadada haddii aynu eegno ramadaanka dhexdiisa waxaynu ku baranay in waqtigu markaa aynu u qeybalay salaad, akhriska iyo sidoo kale lasasho ama sidoo kale in markaa acmaasha kale ee shaqada in markaa aynu qabano. isweydii maalinta beri ah ee bisha ay baxdo
miyaan ka bixi doonaa safka hore ee salaada miyaan xiri doonaa masxafkaygii ilaa ramadaanka dambe qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko calaamadda aqbalaadda camalka wanaagsan waa inaad markaa sii wadid camalka kale ee wanaagsan ramadaanka kadib dadkii nebigiiyo aqoonkiisu banaayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanka salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari isxisaabinta dadlimada iyo sidoo kale gargaarka haddii aynu eegno ramadaanku waxa uu la baray gaajada si aan markaa u xasuusano kuwa baahan isweydii ma sii ahaan doonaa qof markaa deeqsi ah oo naxariis badan masaakiinta iyo sidoo kale agoontala markaa u naxariista oo il gaara ku haya mase jeebkaygu waa uu xirlaan doonaa maalinta afurka ugu dambeeya ama ramadaanku markaa ugu dambeeya qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko culimmadu waxay isku raaceen in guusha ramadaanku aan lagu miisaamin inta maalmood ee aad soo sooltay balse markaa lagu miisaamo isbeddelka kugu dhacay haddii aad bixisay ramadaanku adiga oo ka cabsanaya dembigii aad geli jirtay ramadaanku waxa uu kugu reebay taqwada haddii aad ka baxday bishii adigoo u xiisaya ramadaanku waxa uu kugu reebay iimaan isxisaabintu waxay ka bilaabataa marka aad eegto waxa qalbigaaga ku soo kordhay qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko guud ahaan daawadayaal muuqaalkeelii kooblaa oo idinkaga hadleelay ramadaanka muxuu igu reebay gabagabadii ramadaanka maanta oo ay tahay 29 bisha barakeysan ee ramadaan intaas ayaynu ku soo koobeynaa muuqaalkanna waxa uu ka mid ahaa muuqaallo taxano ah oo lagu talagalnay in daawadayaasheenna aan u soo baahilo bisha barakeysan ee ramadaan sakaraatulmawdkiyo su'aashina tiiriyo casiiradka moodne sooma ramadaanka sakaraatulmawdkiyo su'aashina tiiriyo casiiradka moodne sooma ramadaanka salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari